oo ahaa aabbo ka soo muuqday baraha bulshada qeybaheeda kala duwan asigoona codsanayay in gargaar loo fidiyo maadaama dantu ay biday inuu raaco eri wuxuu ku noolaa magaalada Kismaayo asiga iyo xaaskiisa oo ayadana ah mid aad iyo aad ay ugu timaaday oo aad u duq ah halkaasi ayay muuqaal laga soo duubay baraha bulshada lagu soo xardiyay oo lagu soo faafiyay waxay ahayd xaalad adag ay ku jireen run ahaantii dadweynaha Soomaaliyeed qaar kamid ah dalkii dibadda jira intaba ayaa qaarkood u soo gargaaray oo waa u jeedaan haatan xaaladiisa sidii isku bedeshay يعني dharkii waxyaalihii u baahnaa dhamaan iyo raashin intaba waa laga caawiyay sida muuqaalkani idin ka muuqdo aabe Hilowle iyo xaaskiisa intaba waxa la geeyay guri ku yaala isla magaalada halkaasina dad ayaa ballan qaaday in gabi ahaanba ay inta masruufka ama biilka asiga soo u taqaan inay ku caawin doonaan ajirna ay ka raadsan doonaan maadaama xaaladdu ay ahayd mid allow sahal ah xaaladiisu ay ahayd mid aad u daran waxa uu raaci jiray ari oo ku qaadan jiray lacago sida muuqaalkii hore aad ku aragteen waxa uu ku raaci jiray meel duur ah oo baadiyaha magaalada Kismaayo asigoo sheegay in lacag uu ka raadsan jiray neef walba qoonda u gooni laga siin jiray arimahaas oo idil ayuu ka hadlay aad iyo aad ayuu yani u dhibsaday sidoo sheegay maadaama uu qof daa uusan xamili karin rafaadka iyo duurka oonka ka jira oo ahayn xilligii loogu talagalay inuu wax qabto ama se uu howlahaas aynkaas qabto maadaama howluhu ay yihiin qaar aad u adag qowsaarnimana waa aad garan kartiin kadib ayaa waxa dadyogu ay aad ugu gargaareen uguna xumaadeen arinta aabe Hilowle iyo xaaskiisa ay ku leeyihiin xaalada adag ay ku jiraan iyo waxyaalahaasi ay aad ugu murgeen marka aad ay u soo gargaareen marka waa arintaasi waadkii aad ku darar haatan marxaladii koowaad uu ka gudbay dadweynuhu ayaa aad u soo dhaweeyay shalay maanta ay dhaheen farqi ayaa u dhaxeeya warbixintaasi waxa haatan idin soo tabtaabinay janalka rugmaado xamiili idlaantiin bood ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka janalkan mar walba aad si heegan ah u la socotiin waxa idin leenahay inta alaalinta ku cusub subscribe like share comment inta la wadaaga asxaabta kale si ay ugu farxaan isbedelkan ku yimid